السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله دمانتين وفوس وهذه السلام يا ميلاد جوجتان با إلهي هذه السلام يلو دمانتين والله قالي وهذه السلام يا يانتان عيد يانكو كلا مقنين يانتان واكلا مقنين عيد يانكو كلا مقنين إلهي سبحانه وتعالى عيد خير كذا هنا سواء دي بركة هذا والله دمانتين وهذه السلام هي وفوس ويا يوتو فوس دمانتين الله يدي سلامة يا لو يدي سلامة يا الحمد لله إله بانك وناكسن عيد بانو أيان تان كوتشرني الحمد لله إلهي بامها دسكالة وشكر دسكالة دمانتين ميلاد شوكتان بو يدي سلامة يا الله يديك سلامة يا مي مقالة ميشاد شوكتان با الله يديك سلامة إن شاء الله الله يديك السلامة مي مقالة ميلاد شوكتان بولا الله يقاليقا أنك الله أنك وناكسن روب يبرواق يو رحمة دي الله بانو كترني دمانتين وحان ليه إلهي يديك السلامة ميلاد شوكتان با ودن كيانينا خير كيس إلهي وحان كبرينا الروب كان ميل والببوحيي إلهي الصومالي أنا ودن كياقي إلهي إنو روب ميل روب له وخير له إلهي إنو كدقا إلهي إذن كيس بإذن الله إلهينا هينو كغدغ ميدان وحنا ييلين اون ku barwaaqowno ku bashbashowno ilaahay idankiisa dhamaantiin walaalahayga dhamaantiin waxaan idin leeyahay allah idin salaameeyo adduunyo aakhiraba dhamaantiin maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo hadii alla yiraahdo Soomaaliya isbedbedelkeeda iyo adduunka ta ka socota iyo siday haba u shirshirahayaan oo ay isugu haystaaneen dawladnimo iyo ay isugu haystaan dadkoodina oo meel walba ku baabaasan yahay ama Yemen ha ahaato ama adduunka weynaha ha noqoto meel walba nin u tanaasulaya oo dhahay war maanta wadankeena waad aragteen xaaladda ka jira war bal aynu u tanaasulno oo aynu qarqalatada iyo dhibaatada ka dayna male nin walba meesha isagu shaaha u isleeyahay wad ka helaysaabo ayuu ka dhul bilaabaya Soomaalida waxaan leeyahay war Soomaaliyay ragga Soomaaliyeed oo dawladnimada isku wada haysto wada madax raadiskaayo war Ilaahay iska yaaba wadankeena maanta waad aragtaan ka socotee Ilaahay ka yaaba oo wadanka qaboojiyo oo wadanka dajiya maraad ra'iisul wasaarihi tuurtaan maraad haba shirshirtaan maraad waxa weeye haba maxay dhibaato meel ka unugtaan war waxaan idin leeyahay Soomaaliyay ragga Soomaaliyeed oo maanta waad aragteen wadankeena tan ka jirta war qulqulatada iyo dhibaatada iyo qabiilka iyo balaayada u shirshiraysa naga daayo wadankeena inoo qaboojiyo Ilaahay inuu idin qaboojiyo wal dunya wal aakhira Ilaahay idankiisa Soomaaliya maanta dhibaato uma baahna oo uma baahna oo dib maanta socoto uma baahna sababtay taa waad aragtaan in adduunkii waxa ka socda adduunkii baaba qarxi rababa oo dhibaatadiisi dhibaato dhaaftay waad aragteen wadan walba dhibaatada aynu ku joogno marka waxa idin leeyahay ragga Soomaaliyeed oo dhibaatada ka daayo wadanka oo qolqolatada ka daayo maanta wallahi waxaan idin soo duubay wixiina waligiin aragoo maqal laakiin subhanallah kulli waa iga tirtirmay maanta waxaan tagay xuduudda Yemanta meesha laga soo lugeeyo meesha dadka lagu qabqabto buuraha dadku ay soo jibaxaan ayaan maanta tagay oo idin soo duubay wallahi billahi laakiin jawaalko dhan baa iska kay masaxay waa iga masaxmad maanta taan idin soo duubay oo ku maqnaa hadaad ogaan lahaydeen wallahi waad yaabi lahaydeen dadku xuduudda dadka lagu baabiyo oo dadka lagu qabqabto oo dadka shaarciyada lugeeyaan ayaan maanta idin soo duubay laakiin Ilaahay ma qadarin telefoonka oo dhan ba hal mar iga mufgaroobay oo iga masaxmay marka saasa wixii bay iga mufgaroobeen oo maaragtaa ana soo dejinin maanta wallahi midaan idin soo duubay Ilaah baan ku dhaartay oo mid qiso la yaab leh bay ahayd laakiin subhanallah maanta waxaan aaday xuduudda Yemanta iyo Sacuudiga meesha askaruhu fadhiyaan oo dagaalku ka socdo ayaan shaqo u aaday waan idin soo duubay wallahi xabad baan idin kugu soo duubay Ilaahay waa kan igu ogyahay xabad meesha dadka lagu qabqabto meesha waagii hore markii dadka laga keena Afrika lagu kala iibin jiray meesha dadka markay soo taariibaan oo soo socdaan dadka waxna lagu celiyo waxna alla ka soo fakiyo waxaa soo dhan baa idin soo duuba laakiin subhanallah mar waxda yaday gacantayda miya taabtay miya maaqan kulli waa iga mufgaroobe
وإيجا مسحمي والله وان كحمادي أنت ساعدوضو أن صوت دوبي سبحان الله إلهي ما قدرين لكن يوتيوب كي كلا هذا وحن كسر دشيء إن يربان كسر دشيء أو كم يدبان يوتيوب كي كلا كسر ومقالدة ومقالد أهبان كسر دشيء marka walaalayaal kan kale oo labaad baan ku soo dajiyay oo maqaalid baa ku taala kaasaan maqaalid iyo abu khaalid baa ku yaala kaasaan ilaahay amarkiisa kaas xoogaa ku soo dajiyay marka walaalayaal waxa weeye dadkan oo dhibaatada ay soo maraan baan rabeynaa intu sabuuraha ay ka soo dagaan baan rabeynaa intu dhibaatada askaraha ay soo maraan baan rabeynaa intu islaama waxaan arkay gabar baa iga soo tahriibtay gabar baa iga soo yeeshay tiraahda maanta meel la soo tahriibay iyo meel la soo mari kara inaysan ahayn baan rabay maanta inaan idin tuso meesha dadka dariiqa ay soo maraan iyo dhibaatada ay ku soo maraan baan rabay inaan idin tuso laakiin ilaahay ma qadarin subxaanallah alla ma qadarinin ilaahay ma qadarinin laakiin wallaahi waan idin la rabay inaan idin tuso laakiin marra taani bisha koobaad ee sanadka ayaan leeyahay xajis shuqula baan halkaa ku leeyahay baan rabaa inaan aado idin soo duubo insha Allah biidmillaah ilaahay idankiisa maalinta dambe aan tago hadaan xajis asbuuciyadan ku yeelano ana shaqo u aadinin ayaan idin soo duubaya hadii alla yiraahdo laakiin wallahi baan ku dhaartay hadaad arki lahaydeen buuraha la soo dhaafo iyo askaruhu say u joogaan iyo dhibaatada ku soo qabsata xuduudan iyo dhibaatada ay soo maraan dadkaasu risq way meeshaan u soo raadsanayaan inayna istiraadeen iyo markay halkaan yimaadaan dhibaatada ay kala kulmaan marka waxaan leeyahay hooyooyinka wadanka ilmahoodu ka soo baxayaan oo ka soo tahriibayaan ha cashadeen caruurtooda ha cashadeen meeshaan wax yaala iska yar gabdhuhu markay yimaadaan qadaamad bay ka noqdaan qadaamad bay ka shaqeeyaan oo naftooda anigu waxa mashqalkaan u jeedaan baan ka shaqeeyaa oo mashqalkaan ma kama shaqeeyaa ana iskale mashqalkaan marka shuqul baan u aadaa xuduuda nimanka wiilasha askaraha ku jira arooso oo marmar aan aadaayo arooskaasaan timaha u soo sameeyaa iyo gabadha wajiga iyo waa taqaanaan burkiyeer iyo shuqulkiis baan u aadaa marka dariiqyada waxaad ku arkaysaa iyagoo lugeynaya dariiqyada waxaad ku lama hadli kartid adaa lagu qabsanay waxa lagu leeyahay adaaba ku hayo wadanka dadkan dhibaataan ku yira caloosha kugu xanuunaysa marka dadkaagii oo dhibaataysan aragtid waxaad arkaysaa gabdha qadaamadaad arkaysaa oo muxuu hayto ka qadaamadeynaya carabta oo waxay haystaan oo baaba ay ku jiraan oo dhibaatada ay ku jiraan aan naftaadu ku siinaynin marka waxaan leeyahay meeshaana dhibaatadaas lagu joogaa waad ogtihiin adinku la idin kaga jawaabi maayo dad badan baa arkay oo gabdho badan baa ka shaqeeyay oo arkay marka waxaan leeyahay nimankoodii iyo dadkoodii raggoodii Soomaaliyeedna iyaga isku maqan oo dagaal ku jiro oo nin walba xaq raadisa marka wixii halaal lagu raadiyaa lama waayo waa la helaa ilaahay baa soo yisira laakiin dhibaato iyo ole iyo qabiilow iyo hebelow iyo waxay tirtaa malahan haddaad aragtaan ilmihiina iyo dhibaatada dadkiina ku dhacaysa wadamadan uga dhacaysa haddaad aragtaan wallaahi baan ku dhaartay wadankiina aad ceshan iyo ceebta maxaa tiin aslan Soomaali maxaa tiin asalkiina oo dhan baaba dad waxaa tiin cabiidaho dhulka muxuu ahayd looga shaqaysan jiray meeshaas aad qolo ku sheegataan oo qabiil tun weyn iyo mid tun yar aad ku sheegataan wadankaanse wallaahi waxa idin taala ceeb baa idin taala baan idin waxaad ku qabtaan iyo waxaad ku haysataan midna male ceeb baa idin taala Soomaaliyeed marka waxa weeye ilaah baan ku dhaari goorma karaama yeelanayna goormaan dad nool oo nafta la galiyo noqonayna goormaan magac ayag iyo muunadayadii soo noqonaysa madaxweynihii la doortaad caayaysan ra'iisul wasaarihii la doorto wanaagsan hadda khayr ninka wanaagsan sida loo helayaaba adagba khayr ninka wanaagsan sida loo helaya aniga muuqaalkayga wuxuu ka hadlaysan khayr ka joog baa la dhilaa oo dadweynahaas wada meel walba ugu qori lahaa oo kuwa jooga u sheegi lahaa nin walba waxaas yar buu haleeyaa qarjuf waa la tuuraya warninku waxa way qofka bilowaadanka waxa way wax sheeg buu leeyahay dhib ma lahan ilmahagaas aad wax sheeg loo hadaad rabtiin inaad celiso wax sheeg aad wax u sheegtaa marka waxaan idin leeyahay Soomaaliyeed war qabiilka iska daaya inaan muxuu hayto ilaahay masiibadiisa inaan ku soo ridino war iska daaya qabiilku waa waxa ina rogay qabiil waxba ma taro wuxuu taraa male wax qabiil rabaana male wax qabiil dooniyo rabaana male marka Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay dhibaatada wadamada Carabaha ama adduunka ka jira waad aragtay dhibta ka daayo wadanka oo loolaha ka daayo oo muxuu hayto isqabqabsiga ka daayo oo qabiilka ciduna ma rabto qabiilka ka joojiyo qabiil
qabiil cidna ma rabtay qabiilka naga joojiye ilaahay intaa ka yaabtaan qabiil cidna ma rabto qaata adinku qabiiladoo dhan adinku qaata dadweynaha kan masaakiinta shacabkan faraha ka qaada aad ku awrkacsanaysaa nin qabiilka nimankeena siyaasiyiinta weeye waxaan haystaa waa nimanka siyaasiyiinta ka daaya wadanka ololaha iyo qabiilka iyo muxuu taaba nin cayrsiga iyo dhibaatada ka daaya ilaahay ka baqa ilaahaygiidin abuurtay ka baqa yaana aakhira dacweydin la soo fariisan qiyaamaha ayuu soo idinku gubanin ilaahay noo dambi dhaafo dambigeena dambi waaridkeen baa Allah dhaafo ilaahay idankiisa laakiin waxaan jecelnahay wadankeenu inuu wanaagsan yahay dadku say magac u leeyihiin oo wadankooda magac u leeyahay oo muunadu leeyahay anagana wadankayaga magac iyo muunadu inuu leeyahay ilaahay dambigeena dambi waaridkeen baa dhaafo uma qaalid markay xanaaqdo ama fawsiog markay faws markay xanaaqdo saasay u hadashaa qayladeedaas bay soo kartaa aniga uma qaalidna waa la yidhaahdaa fawsna waa la yidhaahdaa waa magacayga rasmiga ah marka walaalayaal waxaan idin leeyahay ilaahay idankiisa iska daaya ka daaya ololaha ka daaya wadanka hala dajiyo wadanka hala qaboojiyo ilaahay idankiisa dhibta naga daaya haddaan hooyooyin nahay haddaanu nahay muxuu ta shacabkii Soomaaliyeed naga daaya dhibta daaya ilaahay dhibhayna ka daayo ololaha ka daaya wiilkaad soo doorataan oo ra'iisul wasaaraha ahaado qabiil kasta ha laga soo doorto madaxweynaha ahaado meelka hooyo kasta ha dhasho ololaha ka daayo wuxuu ku qaldamana u sheega wuxuu ku saxan yahayna ku amaana wuxuu ku qaldamana ka joojiya waxa tirada war waxaanad ku qaldan wuxuu ku wanaagsan yahayna ku amaana adinkoon qabiil u fiirin Allah subhanahu qaadira idinku dhaarin adinkoon qabiil u fiirin adinkoon cidna u fiirin shaqadiisa ku amaana shaqadiisana ku waxyeeleeyo waxa tirada waad qaldan tahay waad saxan tahay marka ilaahay subhanahu waxa way taariikhdeena taariikh wanaagsan ka dhigo ilaahay idankiisa bismillah dhamaantiin waxaad meelaad joogtaan ba ilaahay idankiisa walaalayaal waa idin salaamaya waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan habeen wanaagsan waqti walba idin tahay in idin wanaagsanaato ilaahay idankiisa waqtigu idin wanaagsanaado sanadku idin wanaagsanaato oo bishu idin wanaagsanaato idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh